وأجا halka wararkaasi aad kala socotaana waa telefishinka RTN warku si toos idin kaga imaanayo studio telefishinka ee magaalada Nairobi markana garow waxa caadi ah inaad daawataan ama aad maqasheen in ciyaartoy kubadda cagta ciyaaro oo dunida caanka in kabihii uu ku ciyaarayay la iibiyay isla markaana carwo la dhigay waa sheeko ka duwan magaalada garow ee caasimadda Puntland waxa kabihiisi carwo lagu iibiyay ciyaartoyga nambarka 9 ee xulka Puntland ee Yacquub la yiraahdo sheekadan ayaa mid ku cusub ciyaaraha Soomaaliya wariyaha telefishinka RTN ee magaalada garow Cabdirasaaq Xasan Cabdi Jubba ayaa faafaynta warkaasi garow ka soo diray هديكي هوري قرصورة حيارته الدوفي إسلامك أولي وغلط خلط لا يعيد متمية دافع إذا لطوري عركني على دينه لا يعيد حدك لمركز الحيو تبراد حلك كوبرتا حتى مركاسي بوغلان أيا دبالتك مركا ولا يعقوب عثمان محمد أحسن جول يعقوب عثمان محمد لمركز الحيو تبراد حلك كوبرتا حتى بوغلان وعلانو سوبر جول Puntland waxay ka mid tahay meelaha sida weyn looga xiiseeyo kubadda cagta. Xulka kubadda cagta Puntland labadii sano ee ugu dambeeyay waxa ay gaareen heerka ugu sareeya. Mar koobka ay ku guuleysteen sanadkana waxa ay gaareen finalka u dambeeya. Soo dhawayntoodu sanadkan waxay ahayd mid aan loo kala harin oo shacabku ku muujiyeen intay gaarsiisan tahay taageeristoodu. taageerayaasha ciyaaryahanada Puntland waxay dhaliyeen dhacdo ku cusub Soomaaliya kadib markii goob carwo la geeyay kabihii uu ku ciyaariyay ciyaaryahanka Yacquub Cismaan ciyaartii xulka Puntland ay ku reebeen xulka gobolka Banaadir sanadkan kabaha ciyaaryahankaasi ayaa lagu kala iibsaday lacag gaaraysa $200 Mustafa Engineer Khalid waa mulkiilaha carwada Goal Sports RTN TV ayuu uga waramay sida ay u dhacday kala iibsigaasi Bismillahir Rahmanir Rahiim magacaygu waa Mustafa Khalid waxaan ahay mulkiilaha carwada Goal Sports waxaan maanta halkan ku haynaa kabihii Yacquub Cismaan oo ahaa gooldhaliyay xulka Puntland kabihii uu uga dhaliyay gooshii Banaadir xulka Banaadir lagu reebay waxa shalay markii ay xulku soo gaareen caasimadda Garowe oo Yacquub abaalmarin u siiyay mid kamid ah ciyaartooyda Serie A Puntland waxaan xalay kala soo wareegnay maqribkii lacag gaaraysa $50 balaayirkii hadiyada loo siiyay waxayna haatan marayaan kabihii $200 maanta waxaana ku guuleystay inuu iibsado injineer Cabdirasaaq Qalinle oo saaka qiimihii ugu dambeysay $200 kula wareegay kabihii waxaan halkan ka cadeynayaa carwada Goal Sports inay mar walba ay ku sameynayso dhacdooyinka noocan oo kala inay keenayso carwada waxaan leeyahay injineer aad baa ugu mahadsan tahay inaad ku guuleystay kabihii Yacquub Cismaan oo goosha kaga dhaliyay gobolka Banaadir aad baan ku soo dhaweynaa mar labaad iyo mar saddexaadba Cabdirasaaq Qalinle oo kamid ah taageerayaasha ciyaaryahanada Puntland ayaa nasiib u yeeshay inuu iibsado kabaha ciyaaryahan Yacquub Cismaan iyadoo dad kale ay u hanqal taagayeen inay iibsadaan wuxuu sheegay inuu kabahaasi u iibsaday inuu taariikh ugu reebo caruurtiisa Khalid anigoo ah magacaygu Cabdirasaaq Maxamuud Faarax kuna magac dheer injineer Qalinle waxa aan maanta kala wareegaya waxa weeye xarunta Goal Sports Center ee ah xarunta sportska iyo dhalinyarada ciyaaraha waxaan fursad u yeeshay inaan helo ama aan noqdo shakhsiga hantay kabihii laacibka weynaa ee maamulka Puntland Yacquub Cismaan Maxamed kabahaas oo ahaa kabihii gooshii kama dambaysta ahayd looga dhaliyay waxa weeye xulka gobolka Banaadir isla markaasna ahaa kabihii lagu furay goolkii ugu horeeyay ee Puntland ay ka dhashato maamulka Hirshabelle danta aan u gatay iyo hiisiga iyo himilada aan ka leeyahay kabaha kani waxa weeye oo kaliya
meel kastoo ay joogaanba Soomaaliya oo idil taasoo ay waxa weeye aanu ku dayano in badan kubadda sida daragteen waxa weeye caalamka horumarayo kale fanaanadaha sportsku ayuu kala waxa weeye uu kala wareegaan taariikhda ay gashay waxay ka soo bilaabatay waxa weeye bilowgaan oo kale waxaan u rajeynayaa waxa weeye ganacsadaha daadayeer Mustafa Injineer Khalid horumarkan iyo tilaabadan iyo xusuus qorkan uu keenay insha Allah inaynu kaga dayan doono haddii aynu nahay Soomaali weyn khaasatan dawladda Puntland waxa aan jeclahay kabahayguna inay noqdaan waxa weeye kaba xusuus qora waxa aan idinka u jeeda aan ku wareejin doonaa lacagtii aan ugu talagalay kabahan oo ahaa waxa weeye min $100 labada kaboodba si aad u aragtaan intaas waxaan jeclahay inay ugu filan tahay dhiirigelin sportskii ama waxa weeye dhalinyaradii Soomaaliyeed khaasatan laacibkii kabahan iska lahaa hadiyada u bixiyay aniguna aan noqday waxa weeye shakhsiga hantay maantay ama fursadaas u helay inuu la wareego aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxayna in noqon doonaan xusuus qor insha Allah mana ay noqon doonaan kuwa aan ku dheelay waxa weeye kuwa aan xusuus qor u dhigan doono xaafadayda oo caruurtaydu insha Allah ay arki doonaan aabahoodna u cadayn doonaan inuu ahaa sports weyn oo waxa weeye kubadda waxna ka yaqaan jecelna insha Allah aad baan idin salaamaya ciyaaryahan Yacquub Cismaan oo ah ciyaaryahanka kabihiisa la iibsaday wuxuu ahaa ciyaaryahankii dhaliyay goolkii Puntland ay kaga badisay xulka Banaadir waxa uu sheegay inaanu ogeyn markii hore kala iibsiga kabihiisa balse mar dambe loo soo sheegay waxaan u mahadcelinayaa shakhsi ka mid ah taageerayaashayda intii koobka uu socday koobka isteediyada hadda soo dhamaaday taageerahaas koobka markuu bilowmayay iga dalbaday kabaha aan ku ciyaari doono in aan isaga guddoonsiiyo hadiyad ahaan shalay oo aan ka soo degnay magaalada Garowe aan taageerahaas shakhsi saaxiibkay ah aan kabihii guddoonsiiyey waxa soo gaadhay saaxiibkay aan aad ugu mahadcelinayaa taageerihii in kabihii magaalada Garowe aan maqlay saaka in lagu kala gadanayay qiimo dhan $200 waxa xaqiiqo ah in qiimo aad iyo aad u sareeya oo aad aan la yaabay lagu siiyay kabo aanu kabada ku ciyaaraynay hadeer oo qiimo aad u hooseeya la soo gaday qiimahaas oo 3 jibaarkiis waliba 4 jibaarkiis ma 10 jibaarkiis la oran karo laga bixiyay waxaan u arkaa waxa weeyaan qiimahaas in laga bixiyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay kubadda Soomaaliya waxaan rajeynayaa dhalinyaro badan in heerkaas heerka sare ay gaari doonaan waa markii ugu horeysay ciyaaryahan Soomaaliya ka ciyaara oo goob fagaara ah kabihiisa lagu kala iibsado taageero loo hayo darteed tani waa mid kor u qaadi karta niyadda ciyaaryahanada Soomaaliya muujinaysana inay gaari karaan heer caalam haddii ay helaan shacab sidan u taageera Cabdirasaaq Jubba RTN TV Garowe